سؤال توصل براوية سؤال شنو راح يقول سؤالها بروفيسور أحمد إسماعيل سبطة سؤال شكوان في الدنيا وحوي بروتو كان إنت تيجي على الرشاق ما واحد سياسي رئيس الوزراء الآن ما سياسي كده الكرسيات هاي مثل سياسي خلاص مصير سعودي يوتر أوكي أي identity أن لا هي نوعية بدن بيلا هذا بنقول أنا مركب وجوه الرئيس مركب دقف دا قالوا يونينا ومسلمين أنت مركب صور ضافت يا هسه ما لان بنا وانقول شيء وطنك أنا كنا identity سكراب الله سياسة بين نقطة that's your point سياسة بين نقطة أنا أقول سياسة تأين السومال لان دستوان دنيا حزبي بان قالي ما كمردوا أنتو حزبي كرمية الله يرى أيان قالي كامبين بانو قالي إلا إمي كانوا كجرا واحد بدن بان كريتيك يوم كوري واحد بدن باقلدن إلا هجاجوي عاوض ما قشين كريتيكا سو ما تقدر ده أنت أنا لك وقف في الناتو political identity for now وهالكي مستقبلك we don't know تعال كان كجهر هيا سؤال شيء ذو حويان خلط كلا ربا إلا صحة ذاتك يسحي لها لما تشوغاني أيا الله ربا إلا يسحان qof walowba awood baad u leedahay inaad kaalin ka ciyaarto siyaasadda Somaliland halka ay ku socoto hadii wax la bedelayo halka loo guurayo waxa soo dhan you have a right to participate in that so all of us are actors in this great drama thank you very much Professor Samatar waxa weydiinaya shalay koonfur markuu tagay ee uu Soomaali u ololeynayay wuxuu soo ogaaday in Soomaaliya ay qabiil tahay oo ay reer gaar u xidhanta maanta wuxuu joogaa Somaliland ma aaminsan yahay Professor Samatar Somaliland ay reer gaar u xidhantahay mise wuxuu aaminsan yahay Somaliland ay reer u wada leeyihiin su'aashaas aan weydiinay ahayd xamar baa tagtay waxaad soo aragtay siyaasadii Soomaaliya inay laba community u xidhantahay anu kelmad Ingiriisi aan taa u abuuro la yiraahdo duopoly marka halkan miyaan monopoly anay weekayn baan filayaa su'aashu inay tahay monopoly waa one rule duopoly waa laba qof oo meel wada leh anu waxaan qabaa inaanay monopoly ahayn maaha here is the reason hadday monopoly tahay daahir riyaale siduu madaxweyne ku noqday hadday monopoly tahay okay aan isma qalad هذا جوابت أنا جعلين أتكيسو بليز هذا كرمش أتكيسو أنا اسمع غلط أنا وحن قبا مونوبولي معها داهر ريالة مدحت النمديسية دور الشديسي با كمر خاطية لكن خطر باجرتي إن مونوبولي نقون كرتو إيه إن نقون كرتو مونوبولي نقون كرتو 2 waxa weeye xisbiyada markii la furayay anu xisbi baan ka mid ahaa dadkii abuuray xamar waan tijaabinay xisbi baan abuurnay xisbiga quru sida runta waxa kale qof socdo ordayahay xisbi hiil qaran la yiraabaan abuur gegadii kubadaanu keenay wala nala garan waay maxaan ku raayay duopoligi baa albaabkii xidhay okay حزبي أنا أقول لك طلقان كله حزبي محله أبورو هاي مركي حزبية ده أبوري محله أبورو هاي حزبي محله أبورو هدي لقوا يده حزبي ما أبورن كرتي هدي أنت الحزبي أبور توقف قصب بحط لكي وججد الله تجو ومركي الباب كله جحده ولا أورن مركي واحد أورنا مونوبولي بقى ماشنجرة لكن أنا واحد قبل سؤال أنا يسويديني وحوي maxaa tolku xisbi u furan waayay waqtigaas markuu taagnaa imikana way soo socotaa ma lagu dhici karaa in xisbi la furto waxay ku socotaa Professor Ali waxay tahay bariya galbeedba waad soo bayaamiseen dhibaatooyinka jira si aqoon sare ah ma idin qorshaysan tahay inaad xukuumadda talada haysa hor fadhiisataan idinkoo wada socdo bariya galbeedba waad isu marteen wali bari maanan tagin واسربنا هنا تاكنو هدي تي أحمد كل عضي اللي يراه أنا يا عظمي ما تجي كرتان براني الله سعانود ده سنة الله مركا عد نقول أنا يسمى تجي كرتان
maxay sababtu tahay burco waa tagnay berbera waa tagnay hargeysa wakhtigii oo dhan baanuba meelahaasu ma mustacmaradan loo ogolayn tabliiq siyaasiga ama doodan furan mindheen meelaha military occupationku ka jiro lama tegaya miyaa walwalkiina hayay unbay caddaynaysaa waxaan rajaynayaa inayan dhicin annaku mar walba diyaar baan u nahay ciddii somaliland ee magaalooyinka aan tagnay dad baanu ka barannay dhallinyaro odayaal dad arrimahan dhab ay ka tahay oo raba inay doodii timaadaba ka qayb galaan network baa saa ku dhisma karta iyo xidhiidh iyo iska warhayn taa waa jecellahay inaannu saa u dhisno haddiiba hadda qalinka hoosta ka mari haddiiba ay noogu muuqato tallaabo siyaasiya in la qaadana oo tabliiq siyaasiga inta laga gudbo siyaasad la dhex galana kow anigu han siyaasadeed ma lihi hadda aan ku celiya haddana dadka qaar baa u haysta inaan dhuumaalaysi waxaan u wado war waxba somaliland kama rabo muxuu aha mansab siyaasadeed kama rabo dhaqaale kama rabo laakiin wanaag iyo mustaqbal fiican oo ummaddana ay ku wada noolaato taasun baan isleeyahay wixii aad ka dhiiban karta ka dhiibo maanka ma ku haynaa inaannu dawladda hor fadhiisanno dee waannu warsan waana ku tala jirnaa hadday oggolaanna ahlan wa sahlan haddayn oggolaanna waraabaa waxa la yidhi warkaba ha laguu tolo dhimatay aade markaasuu wallaahi haddii lay tolana alxamdu lilaahi haddaan lay tolina rabbilcaalamiin saa awalba kaba ma lahayne annaku waa rabnaa waana jecellahay ciddii ay arrintanu khusaysaba inaannu ishor fadhiisanno ka doodno sidan oo kale dood la'aan war sugan layskama heli karo xan iyo war mid gudbiyey dana leh iyo balaayo dhuxdhuxulayso oo warka qaado oo waxaad tidhi iyo waxaadan odhanba gudbisa kuwa wakhti ma siinayno wax ay sheegayaan ha sheegeen wayna eedi laakiin waxay dhab ah ee dawladdu ay kow ka tahay waa jecellahay in layshor fadhiisto in la doodo in garawshiya laysa siiyo inaan bahasha cidina qumbahaas liglaga qabsanoo odhan ma sii daynayo feker intuu keeno anigu waxay ku wajahan tahay doctor cali khaliif galeyd waxaan weydiin lahaa waddankan horta ra'iisul wasaarad ka gaadhay Soomaaliya oo taytalkii ugu sarreeyay kadib waxaad noqotay gudoomiyihii baarlamaanka ayaad isu sharaxday jabhad baad noqotay oo khaatumaad aasaastay waxaan weydiin lahaa boorama xumaaniya samaan waxay ku qabtay Soomaaliland hore bay u haydeen laascaanood damaanad qaad ma uga wada Soomaaliland baan weydiin lahaa mise tabliiqa siyaasiga waa arrin adiga ku gaara wad mahadsantihiin dadka dhulka jooga Soomaaliland nimadooda cidna marti ugama aha haddiise ay ku qanci waayaan hadday ku qanci waayaan war Soomaaliland baanu nahay oo danahayaga oo ay kow ka tahay horumarka iyo wanaagga Soomaaliland iyo qaybtaannu ku leenahay aan xaqa ugu leenahay inaannu hello haddii taas ay suurtoobi weydo dadka dib dambe loo qancin karaa ma jirto misaal baan ku siinayaa maalintii heshiiska aan saxeexnay aniga Siilaanyo qiyaastayda hadda waa khaldami karaa qiyaastayda waxaan isleeyahay dadka dhulka ku nool 80% ama Soomaaliland bay u arkayeen dantoodu inay ku jirto ama waa u janjeereen waa fahamta xasan oo Soomaa haddii aanu hadda heshiiskaasina uu jiray muddo mar 7 bilood oo horaan joogay magaalada Hargeysa haddana bishii saddexaad baa ii socota waxaanu joogaana waa heshiiska madaxweynihii uu saxeexay waa heshiiska baarlamaanku uu ansixiyay haddii ay noqoto
halbacaad lagu lisay dee waxaan u malaynayaa waxay uu noqon doontaa dadkaas oo haddayan ka mid noqon oo loo arag oo ayan iimaansan inay somalilan ka mid yihiin laa ikraaha fiddiin cid la khasbi karaa ma jirto gabadhu su-aashay weydiisay si fiican uma maqal laakiin waxaan u malaynayaa inay duluucdeedu ahayd haddii aad muddo hawshan ku soo jirteen haddana aad bedeen in dadka shacabka reer somalilan risaaladan loo gudbiyo oo war dhaba ay arrimahan ka hayaan waa run waxaan u aragnay inay tahay asluub loo raaci karo ummadda inaan been loo sheegin ee annakoo inaannu dhex gallo war waa maqlayaan war u kaadiye adeer sug su-aashu waxay ahayd dadkii aad hawlaha u wadeen ma tabliiq baad ka doorateen mise dadkii maxaad u haysaan soo su-aashu taa ma ahayn haddaba waa tiri waa sax weyse maysaasay tiri su-aashu soo saa maaha dee waa su-aal wanaagsane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وسجل عبد الله عبد الله مقعي وسجل عبد الله عبد الله waxaan weydiinayaa su'aal professor maxay tahay galayd waxaan kamid ahay dadka ka soo jeeda gobolada SSC waxaan kugu ogeyn dawlad la yiraahdo khaatumo ali meel noogu sheeg maxaad noo haysaa haddaanu nahay shacabkaas su-aasha burcana waa la iga weydiiyey burcana gabadh baa iga weydiisay gabdhuhu waxaan u malaynayaa dee kollayba awalba khaatumo meeshay ka noolaydba awal xagga haweenkay ahayd inay dhulkaa u dhalatay iyo inay dhaxdin tahay waayadan dad badanoo xaggaa ka yima xagga uun soo aadee labadaa inaan kala ogaado waa jeclaan lahaa laakiin ha sheegin middase hawshaas ama meel baan ku ogaanaynaa oo heshiiskiibaa meel mari ama waxay noqon ummaddiinnaasay idinku tashada intii aannu annaku yeeli karnay waxba kama aanan hakran waa suurtoobi weyday tala idinku dib isugu noqda marba waxay ku tashadaanna yay noqon ka ragoo laba saar hadday noqonayso oo ay noqonayso haddana aan dib u jabhadayno iyagay u taal laakiin midda cidda dembiga leh ee taariikhduna sheegi doontaa waa ciddii heshiiskaas aanu hagar bixin